هدي هذا جوجل جرايسو ملب سدين كو هذا ملب إنه سافي هاي هدي جوجل جرايسو هل مرة ومسوا قراءة فرنجير بيل هل مرة one time ومسوا قراءة فرنجير بيل فرنجير إن الجلي واكم ممنوع ملب iyo qudaarta sida babayga iyo mooska iyo wixii la midka waa ka mamnuuc in farajir la geliyo away of ku leeyihiin bagaalka ku leeyihiin ka dheeray ma fahamtay marka malab inuu fariisto waxay ku xiran tahay dibeeris kama kala waa gagambe kan ku sheegay waay magaciisa maxaa la yiraahdaa gagambe geedkan waa sawiradiisa oo ku soo diri doona gagambe la yiraahdaa malabkan 2 bilood ama 3 bilood uu saan halkan iska yaalo oo aan la taabo waa dabiici ana soo saaro anigii soo saara gacanta ku hayo haddana uu fariisanaha qayb kamid ah fariisana qayb kamid ah dareere noqonay taas micnaheedu maaha marka inuu feelsayahay ma fahamtay dunida waxa ugu qaalisan malab la yiraahdo manuka dunida waxa ugu qaalisan malabka la yiraahdo manuka kiiladiisa waa $1 halka kiilo waana fadhiyaa sidii xalwadi waayo oo qaanda lagu goosana soo marka hadii malab kasto adag uu feelsayahay anaga wadankan ma laga helaa manuka wadankan laga helo manuka laba wadan laga helaa waa New Zealand iyo Switzerland wadan kale oo dunida kama baxo waa geed ma fahamtay manuka waa geed ay shinidaas soo aslan bala oo dhan waa geed ma fahamtay marka manukadaas way fadhisaa hadii aad Google garayso manuka hore waa arkaysaa waa $1 halkiisa kiilo kan waa kan $1 waa kan waa intaan waa ana hadda ka $20 iibinamo kan $1 waa haddana wuu fadhiyaa oo adag yahay marka Soomaalida wax kasto fariisto waa saafi ma oranaa way jiri karaan qish waana jiri karaa gacmo sidee marka lagu ogaan karo inuu saafi ma jira qofka caadiga ah ee malabka aqoon mid madow baan aragnaa xataa malab madow hadii lagu keeno malabkaas oo fariisto ha ku degdegin qofkaas ganacsigiisa ha ku degdegin qofka ku soo dhiibay ama ku keenay ha sameeynin waxa sameeysaa kaliya dabka saar malabka qaado waan ku shub dabka baaquli abas ama digsi saar dabka dib ugu celi hadii uu malab yahay sidiisa ku soo laabanaya hadii oo laakiin markii waa la kuleynaa markii la karkaro waa la dejinaa marka karaabil isma gaaray karkar wax yar oo kuleyl markii aad hesho diirimaad fiican markuu helo haduu malab yahay malabmadiis ku soo laabanaa hadii uu feelsan yahayna oo sokor wax lagu daraa ali sokor dabka saar way kulaaneen way uray way madoobaanimo marka malabkii wuxuu noqonaa madow sharafi Allah oo shiiraya marka malab fadhiyaha daa aragta si tartiib ah oo ka waalin dabka saar hadii oo si caadi ah ku soo laabto it's good waa malabka hadii oo malabkii madabkii isbedelo ama oo shiiro ama oo uro waxba ku jira ama midabkiisa uu isbedelo sokor baa ku jirta iska tuur ma fahamtay sax sidaas si lamida malabku waxaan dhihi karnaa maxaa la yiraahdaa inuu adkaado iyo inuu jilcanaado kuma xirna anaga iyo qof bini aadam kuma xirna geedka la daaqay gambaga waa fadhiisana kana ma fadhiisana labada waa sageeyna kan waa fadhiisana kana ma fadhiisana malabka dunida yaalana 70% waa fadhiistaaba anaga hadda supermarket noo yaalo kan supermarketada noo yaalo waxay ku daraan kiimikaad ashyaa u diidayso inuu fadhiisto malabka ma fahamtay marka anagu kiimikaadka kuma darin laakiin dar ilaahay inuu fadhiista laga yaabo marka dar ilaahay inuu fadhiisto marka laga yaabo waxa waaye yaan ugu dhihin marka waa falso inkastoo aniga aan taasaan intaracsanayo malabkan fadhiisto hal shakhsi oo Soomaaliya kama iibiyo sababta keenaysana waxay tahay barbagaankooda farax ka badan maanta oo isma difaaci karno marka waxaan sameynaa annaga isticmaalno reerka deegaanka asxaabta dadka igu hareeraysan intaas isticmaasho laakiin kan inta ku suuq geeyo ku keen ma ka iibima hay'aday ma ka dhaadhici karo shinida su'aal ay ugu soo dhacday lacala haday shinida sumowdo oo dareemo ama xanuunsado soo dibadda ku maqan muxuu sameeyaa ama shinidaas ay sameeysaa horto shinidu mar qaar cudurro ku dhaco waa la tacaalna anaga waa daaweysanaa shinidan daawooyin loogu talagalo lagu buufiyo leeda si dhaqana u daaweynaa oo geedkan dhagayarada la yiraahdo iyo qarfiya heelka waxba isku turnaa diinsida biyaha ugu darnaa geedka diinsida la yiraahdo waa qalajiye foorta aad baa ogtahay dhagayarada kale waa qalajiye qiiqiyaa dabka inta ku shidnaa qiiqa ku qiiqinaa qiiqa ahaan ku daaweynaa biyo ahaan u daaweynaa inta la isla gaarin treatmentiga adduunka isla ogolyahay sidoo kale shinidu haday jirato xabadka jiradee cudurrada ku soo dhacaan way ka ilaaliyaan santuuq kuma soo laabto uma ogola hay'aday meeshaas meel daawo lagu sameynaa waay qof faktada lama ogola waa talwile gacmaha iska dhaq lugaha waxa la dhaxmartaa jeermis dile meelaha qaar oo talwile markano si loo ilaaliyo nadaafadda xabad kamid ah duu jirado banaan ku jirado ama cudur xataa haday ku qaninto markay ku qaninto way dhimataa
sababtay u dhimatay maxay tahay markay ku qaniinto waxay tahay markay ku qaniinto adiga waxaa laga yaabaa inaad cudur qabtid okay hadday ku qaniinto marka intay qaado qaniintintii micdii ama waxay ku qaniintay intay qaado mar labaad ay meesha ku laabato waxay kaa soo qaada inay u gudbisaa laga yaabaa santuuq marka waxay yidhaahiin cilmiga caadiga wuxuu sheegayaa intestine-keeda iyo mindhiciradeedu iyo micdu inay isku xiran yihiin hadday ku qaniinto waxaa kasoo dhacayo ama banaanka imaanaya abdominkeeda qayb ka mida caloosheeda qayb ka mida mindhiciradii iyo intii oo dhan uga tegaysaa meesha dan way dhimanaysaa aayaddii qur-aankeedii taasna iswaafaqayaan maxaa yeelay meeshaas qof intuu ku qaniinay dib ugu laabanayo meesha daawada lagu samaynayo waa qalab marka way dhimanayaan marka anaga meeshaas diinteena iska waafaqayaan qodobka ah inuu banaanka ku dhimato shinidaas intay adig ku cunto ayna ku laabanin santuuqi ayna ku laabanin waa tahay intaana soo gabagabayna saaxiibkii ay la socdo waxaad isleedahay su-aal aad isleedahay dadku way anfici lahayd oo malabka ay jiraan ma jirtaa inkastoo adigoo interviewga aadan muuqaaga dadka tusin su-aalaad aad weydiin lahayd maxamed ma jirtaa maxamed waxaan weydiin lahaa waxaan arkay hadda kahor Ethiopia koonka waxaan ku arkay malab madow oo weliba malabeena kala qaalisan malab madow muxuu yahay hada madow kan guduudkan ayaan cadaan madowga hadda sidaan sheegaba manuukaha qayb ka mid aha madowba geeduhuna midna hadda anaga waddankeena madow waa laga helaa geedka la yihahda sarmaan jiifka ama sarmaan gaabka la yihahdo sarmaankaa laba loo qaybiyaa mid sarmaan dheere la yihahdo iyo mid sarmaan gaab la yihahdo sarmaan jiif la yihahdo ka sarmaan jiifka la yihahdo 15 maalmood kadib waa soo saari rabnaa hadii la yihahdo malabkiisa 15 days kadib waa malab madow soomaalida markii halkan la eego malabkii madoobay way ka cararayaan laakiin dunida saa sheegtay waxaa waaye halkii kiilo waxaa la iibiyaa $100 aa la iibiyaa marka it depends malab inuu qaali noqdo waxay ku xiran tahay geedka ay daaqday oo la cadeeyay manuuka oo kale way ku cadeeyeen way muujiyeen geedaha dhan way muujiyaan akashiya family la isku dhahaa qaybtan qodaxleyda Soomaalida inta badan ay isticmaasho akashiya family bahda qodaxleyda la isku dhahaa quraca qansaxa sarmaanka bilcilka cadaadka waxa soo dhaw qodaxley waay bahda qodaxleyda waxay ku jira kaalinta labaad kaalinta koowaad manuuka ku jiro kaalinta labaadna bahda qodaxleyda uu boqorkoodu yahay geedka la yiraahdo gobka waa the king of geedahaas boqorka dhammaan malab geedoo dhan waa gobkan waxay yiraahiin liquid of gold dahabkii dareeraha ahaa malabka laga soo saaro gobka iyo geedaha qodaxda loo dhan waxay dhahaan liquid of gold ama dahabkii dareeraha ah inta badan waxaa laga keenaa gobolkan Xadarmuud Yemanta waxay haystaan carabta suuqyada carabta oo dhan ay haystaan waxaa la yidhahaa sitr waxay la asal sitr ama malabkii gobka ay dhahaan Soomaalida inta badan gobka kuma badna waa teelteel 5% ilaa 4 camal lagu qiyaasaa waa gubnaa waa la gooyaa aba dhuxul ahaan u shid gobkii anaga waxaan gob ugu bixinay mataqaanaa abaari aaran caleenta ma dhigo hebel waa gob ma maqano waa qof oo macnaha hebel isma bedelo macnaha dad maqashid waa hebel waa gob oo kale reerkaas waa reer goba isma bedelayaan abaari aaran isma bedelaan geedkii noocaas anaga ma nagu badna sidoo kale waa bajarnaaba mararka qaar maxamedow waa tahay horta shinnida idinku maadaama aad beer iyo haysatay shinni badan aad leedahay oo aad wax soo saarto shinnida waan ognahay maadaama wax la dhaqda ay tahay xayawaanka annaga nimcooleyda ama xoolaha aan haysano waa loo heesaa waa loo gabyaa waa loo geeraaraa adigoo maadaama aad tahay ninka dhammaay shinnida dhaqanaya wax hees ama gabay ama garan loo sameeyo ma jirtaa oo taqaano shinnida no ay qosdiso wallahi waxa waaye shinnida maadaama inuu cusub tahay dhalinyarana aan nahay kulley arrinta heesta waa aragtay markaan waqti dheer ku jirno ayaan soo saari doona heesta shinnida laakiin hadda odayaashii hore markayna arkaan anagoo shinni dhaqayno way naga cudbilaystaan kuwa ilaahay arsaaqada meel xun ka yeeshee ilaahu kuwa arsaaqada u fududay ayay naga aaminsan yihiin dad liito oo maaragtay iska masaakiina oo tabcaana ay ku leeyihiin degdeg su'aal ay ugu soo dhacay degdeg shinnidu wax ma dishaa iyadoo hadday dagaalkeedu bato oo kale ama xoolaha qaar maraan muuqaal daawan waxaan arkay neef xoolaha sidii ugu tuurneed iyadoo dhan ayuu wada soo inuu dhacay marka wax ma dili kartaa shinnida oo qofku naf ma ka qaadi kartaa waxaa intaas su'aashaas muhiim waaye in ay gaarsiiso dadka Soomaaliyeed waa jecelahay haddii horta shinnida way dishaa oo shinnida hadda annaga noo xaraysan qaybo ka mid ah gacan ku dhiigle ba dhihi karnee maxaa dhahnaa saynta ku dhiigle baa dhahnaa waxaa waaye macnaha iyadoo dad layso oo meel degan nala dhahay war shinnida dad ay layseen qof ay dishay canug saqiir oo kale disheen kaalay wata
intaa u nimidaan soo wadnaan soo xarayno marka okay mid anaga shinnidu iska socotay ahayd oo duurka iska joogtay meel deganeeday way tuutuuriyeen ciyaal waa taqaanaa geed cambaha deganeeday way tuutuuriyeen geedka cambaha kasoo dhigtay way ku tuuratay laba ahaayeen midna webiga ku tuurtay midna webiga intuuna ka gaarin ayba dhex ku dishay kii webiga isku tuurayna way kor istaagto marka madaxa la soo baxa way ku tuuraneen ilaa markii dambe uu laga badbaadiyay asiga nin dabaal yaqaan u ahaa taas waa soo xarayno waa noo xaraysan oo kale annaga tan noo xaraysan oo kale marka qaar neef geel hadda isbuuc la soo dhaafay neef geel igu dishay ay uga tuurtay xeradu soo dhex istaagay dhashinida laga shaqaynayay xeradu waxay leedahay waardiye wiil waardiye oo banaanka ka waardiyay leedahay marka laga shaqaynayo maadaama ay 1 kilomitir isku weer camal ay careysantahay loo soo dhawaa karin wiilkii yaa uu adigu si uu il duufay hal neef oo geela soo dhex istaagay way uga tuurtay marka waxaan ka rabaa haddii aad aragto neef ama shakhsi shinniyu ku tuuran tahay maxaa gargaar degdeg u fidi karaa su-aasha halkaas ay muhiim waa taas muhiim waa taas maxaa gargaar degdega oo u fidi karaa waxaa u fidi kartaa horta saliidda kuugu dhug soo qaado saliid caddeeda way nacabtaa saliid caddeeda haddaa soo qaadato qofkaas aad ku gelmiso ama aad u mariso muku degayso way iska ilaalin loo geeyo ma rabto horta qof shinni ku tuuran tahay marka adigu u tigi karto adigu u tigi karto moogtahay saliiddiyaa qaadanaya qaar kalaaba ku soo aadaya adi madaxa ku duubay adi marsadar adi marka hore marsadar laakiin tallaabada ugu dhow la qaadi karaa ka hadlayna midda labaad hore neef oo kale ama shakhsi hadday tahay waxay ka gashaa inta duleesho mindhaha sanka afka jawaan u geli madaxa afka horta jawaan geli baa iyada qofkaas jawaan u geli ma fahantu leeyahay qofka jawaan si madaxa gashade ama qofka cag saliid u tuur rasmari leh hadduu shakhsi yahay oo intaas garan karo hadduu xoolo yahayna intaasoo kale samey hadda shaqaalahan oo kale inta baran yihiin way sameeyaan sidaas oo neef geel oo kale marka ku tuurato saliida u taalo way baxaa dharkii wataan ayaga maxba uma taalo marka waxay sameynayaan neefkii saliid loo marinayaa ama jawaan oo kale madaxa loo gelinayaa ama maxaa la yidhahdaa maadaama ayaga dharkii wataan sidaasaa lagu badbaadiyaa laakiin shakhsi ahaan qofka adiga adoo agtaada shinni qof ku tuurato waxaa kuugu dhow ku samayn kartaa waa inaad saliiddaas u raadiso ama maradaas madaxa looga dadaayo haddii aad ka badbaadiso marka daawooyinka xasaasiyadda joojiya kuwa bararka dejiya xasaasiyadda kuwa ka hortaga allergic waa baasha inta badan daawooyinkaas aa loo raadinaa qofka baraf oo kale in qofka la saaro lagala gaaro barafka lagala gaaro kaleeto in xasaasiyadda qofka la dejiyo bararkiis in la dejiyo xanuun baabiyo in la siiyo waxyaabahaas oo dhanaa qofka lagula tacaalaya haddii hortaa inta cunto laga gaaro qofkaas laga gaaro marka waa tahay maxamed waad mahadsan tahay maxaad jeclaan lahayd oo kale inaad waxaad ilowday haddii jira ama inaad tiraahdo ugu dambeyntii barnaamijka waa soo gabagabayn lahaa waa tahay waxaan kusoo gabagabeynaynaa shinnidu waxay muhiim u tahay kow bani aadamka laba deegaanka deegaanka haddii uusan shinni lahayn bacrimin ma helayo maxaa yeelay waxay ka qayb qaadataa kororka geedaha iyo tacabka maxaa yeelay shinnidu waa cayayaanka ka qayb qaato bacriminta dhirta pollination dunida muhiim u yahay adduunka bajedyo waaweyn kusoo baxo taageero waaweyn ay helaan caalamiya dadka shinnida dhaqday xanaaneeyo maxaa yeelay ecosystemka ama isku xirnaanta deegaanka iyo dadka ayay si fiican uga qayb qaadataa iyo cuntada adduunka geedaha iyo cuntada adduunka 70% ayaa la yidhahdaa way ka qayb qaadataa shinnidu marka waxaa la dadkayga Soomaaliyeed ha ku wacyigashamaan ha fahmaano ha ku dhiiradaano ha taageeraano shinni dhaqashada maxaa yeelay waxay muhiim u tahay haddana waddankeenu waa meesha ugu dhaway food balancegiisa laga ilaalin karo maxaa yeelay anagu inta badan baastii bariisa cunaa dowlad maanta quality control na taageeraysa male dadkeenu wacyi ahaan qudaar iyo ma heli karaan food security ma heli karaan waxa keliya ay heli karaan waxay tahay in ay malabkaas ku jiraan dhammaan daawooyinkaas iyo cuntadaas oo ah tayada leh inay malabkaas badiyaan intii lasla gaarayo in la helo food security iyo food safety iyo quality control iyo cuntooyin dheelitiran oo balance intii lasla gaari doono bedelkaas waxaa noo geli karaa malabkee aan malabka ku dadaalno cunitaankiisa waa tahay maxamed cabdulaahi bare aad iyo aad baad u mahadsan tahay anigu xaggayga way ka dhammaatay haye saaxiib cabdiqaadir maxaa ku dari lahayd adigana gabagabadii waxaas lahaa waxaa iga baxay taladaada ma dhihi karnaa markaa adduunyada hadda waxaa dhib ku haya isbedelka cimilada iyo nabaad guurka deegaanka marka shinnida haddii si fiican loo dhaqo oo shirkadaha shinnida ay bataan dhaqashadeeda waxay ilaalinaysaa inuu deegaanka nabaad guurkay ka hortagtaa seriously nabaad guurkay ka hortagtaa cimilada isbedelaysa ka hortagtaa geedaha inay tarmaan ay bataan ay ka qayb qaadataa meel kasta oo ay degtani waxaa la yidhahdaa sideedaba waa xayawaan barakaysanba maasha allah
malab baa lagu yiri malab Ha, waxay waa malab ay marka. samaysaa marka deegaankaas iyo ilaalinta deegaanka ka hortagtaa shaqo abuur ay leedahay wakaas wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh aad baad u mahadsan tahay maxamed insha allah waa booqasho wanaagsan aadan inaad xog badanna siisay asxaabta waxaan leeyahay wixii aan ka tagnana commentiga noogu reebi doontiin insha allah haddii ilaah iraado malabkane iska diyaar waa la soo doonan karaa Haddii Ilaahay iraado. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته